waan ogahay in Soomaalidu ii taqaano Basadir waxaan ku ogaaday wiil turjuma muuqaaladayda oo la yiraahdo Farxaan Diraac Sawaaxiliga ayuu af Soomaali u turjumaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم معنا ونحسن دعوة عشرة شرف طبعا ومركز لي مقال عصب بس انت هذا الفيديو ولا ما يسن هذيت هاي مركز وهرسي مقال كيف سوق قالوا والله واحد عصينا فلوسطوتيا في بيت هنا خرسول ميديا سيدو كله وسيشير كذا أصحاب هذا كله هذه أتهيأ أصحابتي هرنا ولا تشوفتي هذه كل يوم حلقات ربع وايد بدنا كذا حسس مقالك لايك صار. Translate video ya Kiswahili kwenda kwa Kisomali. Basadir ma ogtahay in taageerayaal badan aad ku leedahay Soomaaliya? Hiyo na tunajua sana kama Soomaali wanatupenda wanatusupport sana. waan ogahay in Soomaaliya aad looga jecel yahay oo ayna taageeraan sababtoo ah haddii dadka dalalka Andariska nahay sida Soomaaliya ay ka heleen madadaaladeena haddii aanu nahay reer Tansaaniya taa waxaan u aragnaa isku duubni xoogan. Toka Tanzania Dar es Salaam huo ni umoja mkubwa sana. Ma taqaanaa gabdhaha lagu magacaabo Idil iyo Istaahil? Tunajua zamani tulipishana nini maneno na Farxaan Diir. waan ogahay hadda ka hor waxaan hadal isdhaafsanay Farxaan markii dambena waan isfahmay si wanaagsan ayaan u wada shaqaynaa hadda waan kala garanayaa Idil Istaahil iyo Basadirba. Najua kabisa kama huyo anaitwa Idil huyo anaitwa hivi anaitwa Basadir ya tunajua. Khilaafkaas aad sheegtay ee idinka dhaxeeyay ma noo sheegi kartaa waxa uu ku saabsanaa? Bado alikuwa na posti video bado tulikuwa tujafahamiana mimi na yeye. Waxa uu soo baahinayay muuqaaladayda iskumana fahansaneen arrinta laakiin markii aan wada hadalnay waan isfahanay hadda aniga iyo isagu dad walaalo oo kala ayaanu nahay. Tukaongea tukatengeneza mazungumzo mpaka sasa mimi na yeye ni kama ndugu. Weligaa ma ku fikirtay inaad booqasho ku tagto Soomaaliya? Peke yangu mimi itabidi niweke nguvu kubwa lakini akitokea sponsor ambaye ana bosi peke yangu mimi haddii aan keligay tagayo waa inaan dadaal badan geliyo laakiin haddii aan helo qof kharashka oo dhan iga bixinaya waan tegayaa laakiinse iska tag ma aha. Niile vizuri nikae vizuri sio nikurupuke tu niko Soomaali. Lacalla haddii aad fursada hesho Soomaaliya xagee ka tagi lahayd? Nadhani ndani ya capital unapokuaga makomedian waxaan aadi lahaa caasimadda dalka oo aan ku leeyahay asxaab badan oo majaajilaystayaal ah si hawshaan halkaa uga sii wadno. Capital fadhali kufika capital ndani afu ndo kazi endelee. Ugu dambeyn Soomaalida ku taageerta maxaa fariin ah oo aad halkan ugu gudbin lahayd? Ya kwa Soomaali wananisupport nitasema kwanza shukran alhamdulillah na Soomaalida ay taageerta marka hore waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin taageeradiina. Soomaaliya waan imaan doonaa hadduu aan leeymo halka ka sii wada taageeradiina ii soo duceeya insha Allah haddii aan helo qof geeyo Soomaaliya waan imaan doonaa. Waniombe Mungu insha Allah akitokezea mwekezaji mzuri bosi mzuri nitakuja Soomaali.